السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دhowaada dhamaantiin meel walba joogtiin haddii tahay markii ugu horeysa aan soo booqato fadlan subscribe halkan haddii aad tahay dadka hore inoola joogeen oo ku mahadsantahay mar kale kusoo dhawo muuqaal kale. haddaba waxaan rabnaa maanta inaan kaa dabageeyo muuqaal yar oo muhiimadiisa wato oo rabo inuu waqtigiisuna uu soo koobnaado. maanta sida ogtihiinba waxaa jiro CBI Mareykanka mar walba oo news u jiro suuqa saameyn karana oo wax ka bedeli karana waa mar walba oo aad ka faa'iideysan kartid oo lacagna aad sameyn kartid. soo haddii ay tahay markii ugu horeysa news ku trade gareysid fadlan waxaan ku dhihi lahaa ku degdegin laakiinse bilcagsigeeda kale waxaad sameyn kartaa inaad waxa la yiraahdo aad isticmaasho maxaa la yiraahdaa lot size akoonkaada u qalma kadibna aad tijaabisid sidaan ku sheegi doono iyo sababaha aan sameyn doono. haddii uu ku cajabiyo well done, haddii kalena waxaa waaye systemkaada qayb uusan ka ahayn inaad ka baaqsan karta ayaan ku rajeynayaa. haddaba sidaad ogsoon tihiin waxaa maanta jiro CBI suuqa Mareykanka maxaa la yiraahdaa lacagta Mareykanka isheeg saameynay. so inta badan sida wax saameeya waxay ugu badan yihiin horta dollarka oo suuqa dhinac u dhaqaajiya. sidoo kale mararka qaar waxaa ayagana sidoo kale aad u saameeyaan maxaa la yiraahdaa lacagta Ingiriiska. laakiin maanta sidaad ogsoon tihiin baa waxaa jiro isheeg CBI-ga wax yar haddaan gadaal idiin celiyo in xasuusiyo maxaa la yiraahdaa jimcihii oo kale waxaa jiray NFB-ga Mareykanka. I think inay taariikhdu ahayd 8 inay ahayd ayaan rajeynaa. waa kana NFB-ga Mareykanka ayaa jiray. so waxaa aragtiinba NFB Mareykanka inuu zaaid kor ugu soo kacay. mar walba oo aragtid lacagta inay kor usoo kacayso waa mar walba ay fiican tahay oo qaab maxaa la yiraahdaa lacagtaas u wanaagsan ay tahay. mar walba oo hoos u socdana ay lacagtaas ay saameynayso. mar walba waxaa ujeedaa inuu forecasting la saadaalinayo 184 uu ahaa laakiin waxa dhacayna waxay ahayd ugu dambeyntii ku dhawaad 200 oo okay 199. haddaba maalinkaas haddaa xasuustiin waxaa lacag fiican ayaan ka faa'iidnay suuqa. waxaa kamid ahaa USD oo kale looga faa'iideysan karay. waxaan ujeediin inay halkan ay u ahaa maxaa la yiraahdaa kandalkii kan u ahaa galabkaas jimcada saa kan ayuu ahaa 30 daqiiqo ay soo baxaysay 10 saac ee bar camal. so 10 saac ee bar markay baxaysay mararka qaar suuqa wuxuu sameyn jiray kandalkan kor ayuu intuu u baxo oo halkaas tago ilaa 10 biib 13 biib camal ayuu kadib soo noqon jiray. laakiin tan maba dhicininba oo waxa ujeedeen si duuduuba toos inuu baxay oo 40kaas biib ilaa 50kaas biib oo ku dhawaad uu bixiyay. so maalinkaas oo kale waxaa sameyn kartay halkaan oo kale waxaa dhigan kartaa waxa la yiraahdo calaamadan korna sidoo kale waa dhigan kartaa ayadana kandalkan korkeeda. so buy-ga soo qabanaysaa buy waxaa dhiganaysaa halkaan stop loss-kiisana waxaa ku joojinaysaa kandalkan. aan isfahano kandalka halkaan ayaa ku joojinaysa. so kana seelkana waa soo furanaysaa ayadana sidoo kale halkaan ayaa dhiganaysaa. kadib meeshaad doonaysid inaad uga hartid ayaa ku beegaysaa oo ah mar walba gidaaradan kaa hooseeya. so anaga 25 camal ayaan target gareynaynay 25 bibs. so 25 bibs kadibna kandalka afkiisana hadduu soo noqdo oo ah 7 biib camal ayaad dhiganaysaa. so labadooda mid la furi doono ma ogid sababtoo inaad news inta akhrisid aad kadib geshid waa qalad. laakiin bumtaas hore oo suuqa uu boodayo ayaa ah muhiimada koowaad. marka waxaa sameynaysaa kana saana u dhiganaysaa kana saana ayaa u dhiganaysaa. so marka waxaa furanaysaa trade MT4 kaada tagaysaa buy stop. hadduu halkan suuq soo gaaro ifur hadduu halkan gaarana ifur. so kana sidoo kale waxaan target gareynaynay asagana 25 bibs oo halkan kora ahayd hadduu even uu dhaco inuu kor soo qaado. intana waxaa uga boodaysid waxay tahay oo halkan kore suuq marba intuu kor u kaco ayuu maxaa soo noqdaa marna sidii bilcagsigeedoo kalena hoos ayuu intuu u kor sii aadaa. so taas ayay ahayd 12 biiba waxaan u siinayna mar walba. so waxa ujeedin kan ayaa furmay bumti koowaad uu dhaqaaqaba toos ayuu TB ugu dhacay. so CBI-gana waa waxaa la yiraahdaa newsida sidaas oo kale suuqa saameeya oo asagana sidaas oo kale ayaad uga faa'iideysanaysaa insha Allah. lacagaha uga faa'iideysan kartidna USD iyo USD CAD iyo waxaa kamid ah USD JPY iyo AUD USD iyo JPY USD oo kale iyo USD CHF iyo NCD USD. adoo lacagahan dollar kala socdo midkii markaas adigu cajibiyo
ayaad kaga faa'iideysan kartaa. So inta badan waxaa ugu muhiimsan ugu fiican oo aad u boodo oo biibs fiican leh waa USD ka mid ah iyo USD CHF iyo USD CAD. intaas ugu fiican horta fasti. So aniga ayaad fursad ka raadinaysaa haddii fursad wax oo dhismi weydana qaybka hadda aan ku sheegay ayaad isticmaalaysaa. marka haddaba waxaan samayn doonaa USD waxaa samaynaysaa meelahan hadda supply-gan oo kala ah ayaa u malayn doona inay rajaynaya inay tagto. so hadda meeshaan ay taagan tahay in xoogaa yar laga daadiyo ayaan rajaynaya oo liquidity ay noqoto meeshaan kale oo top ah. liquidity oo top ah markay noqoto halkan waxaan rajaynaynaa xoogaa yar saan ugu noqoto saan inay ugu noqon doonto ayaan rajaynayaa. kadib markay noqoto korkaasaa loo jebiyo inta saacadahan ka dhiman oo hoostaan kale soo jebiyo haddii uu inoogu noqdo saas noqdo waa systemkeena ay waafaqday oo ka labayn mayno toos ayaan u galaynaa. kadib biibis badan ayaana ku jira markaas ilaa dhoonkan hoose in la jebiyana waaye adii lacag fiican ayay noqonaysaa. waxay noqonaysaa halkaas adii 80 biibis camal. haddii kale ay noqon weydana sababtoo waa news dhinacu yahayna ma garan kartid asagana waxaa fiirinaysaa korkaan inuu saacadahan iska soo jebiyo kadibna uu soo noqdo kadibna sidaan ku sheegay ayaa buy iyo sell kala dhiganaysaa. kii uu ku furo ayaad direct u raacaysaa. waa sida ugu macquulsan oo maxaa la yiraahdaa news ugu trade gareyn doonto. mar walbana waa ku sheegay waxaa samaynaysaa candle-kan oo kale markuu uu 3 daqiiqo u dambeysay ay ka dhiman tahay waxa la yiraahdo ii sheeg newska ayaa waxaa samaynaysaa waxaa soo furanaysaa maxaa la yiraahdaa ii sheeg ayaa waxaa habaysanaysaa maxaa la yiraahdaa meelahaad ka galeed positionkii iyo sida ugu yara macquulsan. so marka mar walba waxaa samaynaysaa markuu 3 daqiiqo kale ka dhiman tahay halkaan oo kalena waa meeshii as dhiileed waa laga dhaqaaqi karaa halkaan oo kalena waa meesha. so space mar walba halkaan hadduu at least waxaad dhici karto inuu trade uu sidaan u soo daadego oo 8 biib ku geliyo kadib uu toos kor waa soo 8 biib 9 biib 10 biib oo space ka soo hoos mar walba meelahan camal iska soo dhigo. tan kalena sidoo kale 8 biib 9 biib 10 biib mar walba si kadib maxaa samaynaysaa kana buy ayaa leedahay oo candle-ka markaas suuq uu maray hoostiisaas ayaa dhiganaysaa adoo 25 biib camal iska raadsanahay. hadduu ka badan buu inta badan bixiyaa laakiin mar walba haddaan isku trade gareynaysid xasiloonida ayaa fiican iyo wixii markaas maxaa la yiraahdaa ku wanaagsan waad dareemi kartaa. lot fiican ayaad gashan kartaa oo akoonkaada oo u qalmo. so waad maxaa la yiraahdaa mar walba waa ogtahay suuq waa iska wada riski laakiin risk oo degdega iyo riski oo long kaliyin. so riski degdega iyo ku dhaafin mar walba suuqaan taagan. so kana 25 biib ayaa halkan ka qaadanaysa. so halkaan ayaa asagan target gareynaysaa. so labadooda mid ku furmo kala jeclid newskaad ka daawanaysaa markaad aad dhigatid newsku markuu soo baxo intaad si aqrinaysid ayaa arkaysaa. mar walba waxaan ku yiri aawi si beega waa kana mar walba waxaan ku yiri waxaa lacagtan u wanaagsan inuu ii sheeg tusaale oo kale maxaa la filayaa hadda si beega kan wuxuu saameyn badan u yeelanaa waxa kamid ah midkaana bilow waayo maanta kana sanad lawa. so kan waxaa la saadinayna inuu 0.0 lagu hayo. so actualka hadduu bato lacagta u wanaagsan tahay hadduu 0.1 0.2 0.3 saas wuxuu noqdo lacagta u wanaagsan tahay oo koray u sii qaadaysaa lacagtaas long ay noqonaysaa. so kan yar ligana waxaa la saadaalinayaa 3.2 oo inuu ahaa bishii lasoo dhaafay previous ka waa kan waxaa la saadaalinayaa 3.1 so waxaa dhici kara marka inuu kana sii yaraado oo 3.0 iska sii ahaado 2.99 iska sii noqdo ama waxaa laga yaabaa inuu noqdo maxaa la yiraahdaa 3.4 3.3 something like that. so asagana sidaas ayaad uga faa'iideysan kartaa. so ilaa hadda wax trade kale oo macquul oo suuqa ka soo dhadhow ma jiro aan ka ahayn maxaa la yiraahdaa AUD CHF ayaa fursad ka jirta mooyaane fursadan ayaa macquulka ah ayaa ka jirto. waxaan sugaynaa in hoostan la imaado confirmationkaas ayaan sugaynaa kadib ayaan dhafangalaynaa hay'adan insha Allah. hay'ada xitaa waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda inay trade-ku inoo furan meelaha markuu inoo furo
waxaan rajeynaynaa anagu halkaan target gareynayna inuu meelahan oo kale hadduu already uu ku kaco intaan oo biib oo kale markuu halkan yimaado asoo ku qaadmo intaan oo kale 10 biib camal hadhowtidii stop losskaada soo raraysa halkaan keenaysa sababtoo newsku qoos ayuu usii khaldi karaa jihada haddii kalena uu kuu buur garinayaa adaa saxsanaa haddii kalena uu kugu soo celiyeen soo lacag kaaga qasaan oo faa'iidada kaliya uu kaaga xiro ilaa bam oo leeyahay waa ogtaa marar leeyahay inaad isku sii qasaarin ayaa asagana ku fiican soo hayadana AUD waa fursad kale oo muhiimkeeda wadata ilaa 40 biibs camal ayaa ku jirta oo targetka ah soo newskuna noo sii buur gareeyo ayaan rajeyn doonaa insha allah muuqaalkan ayuu ah muhiimadiisu inaan saacadaha soo socda isku ku dhaafin CPI-ga oo uga tiraadgaraysid maxaa la yidhaahdaa qaab degdega haddii aad wax ka faa'iideen oo ku rajeyn doonaa qaybtaas Telegramka ayaa rajeynaya inaad informationkaada macluumaadkaaga nagula wadaagi doontid insha allah muuqaal dambena waa soo duubi doonaa after maxaa la yidhahdaa markuu CPI-gu soo baxo intaan muuqaalka xig ku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.